Garoonka dalka la wareegay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaan gabi ahaanba shaqay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal kaas oo noqday jagooyin ay kala qaybsadaan dadka hareeraha ka xiga garoonkaasi haddaba saaka raxan dhalinyaro ah oo reer Boorame ayaa waxay booqasho ku tageen garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorame si ay u soo ogaadaan xaaladda guud uu ku sugan yahay garoonkaasi walow indhahooga ku soo arkeen goob lagu kala dareeray ama horay loo kala qaybsaday sida indhahaagu qabanayaan garoonka waxa ka muuqda xoolo nool oo daaqay kaas oo gabi ahaanba agabkii iyo qalabkii dhex yaalay garoonka diyaaraduhu ay noqdeen kuwa u dhamaaday ama u dhintay dayac xumada ka jirta garoonkaasi walowsan jirin cid si rasmi ah uga saaran yahay xil dhalinyaradan ayaa saaka markii ay goobtaasi tageen waxa ay ka aragti bixiyeen sida ay u arkeen garoonkii diyaaradaha kaas oo ahaa meel ka mid ah halbowlayaasha ay ka dhaqaaqda bulshada reer Awdal dhalinyaradani ayaa dareenkoogu is haysan waayay markii ay goobtaasi tageen isla waqtigaasba waxa ay fikirkooga ku cabireen iyagoo taagan garoonka diyaaradaha sida ay u arkaan garoonkan iyo dayaca faraha badan leh ka muuqda hadda la doodiina waxa kamid ahaa halkan waxa inooga muuqata dayac badan waxa inooga muuqata wax qabad la'aan waxa inooga muuqata in ay meeshaasi ay iska tahay meesha de kolba dhinac bulshada markii ay waayeen wax ugu adeegaya ay kolba dhinac ka soo galeen sida darteed wasiirka ayaa uga mas'uula xukuumadda wasiirkana waxa looga baahnaa waxay ahayd cadaalad inuu ka simo waxqabadka ee riboodada jamhuuriyadda Soomaaliya inuu ka simayahay laakiin waxa nasiib darro ah inuu takooray goboladan Awdal iyo Salal iyo Sool inuu takooray ayaa maaragtay ka muuqata Sool iyo Sanaag yacayn inuu takooray ayaa ka muuqata haddaba anagu saaka waxaan u imanay inaanu halkan ka tabino fariintaas oo ah inaanu kow u soo bandhigno bulshada gudaha dibadba in airportkii gobolka Awdal airportkani waa airportka kaliya gobolku leeyahay gobolka Awdal ma jiro airport kale oo aan kan ahayn oo ku yaala kanina waa ka adarkaysan sida wada yacan waxaan doonayaa inaan ka hadlo wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland oo lagu sheegay inay tahay wasaaradda ay hoos tagaan airportada dalku inaanu airportkani kamid ahayn airportada hoos taga wasaaraddu waxay ka shaqaysaa 3 airport oo wasiirku afkiisa ka sheegay airportka Hargeysa ka Berbera iyo ka Burco waxaanu ka bareeray reernimadiisa waana airportada ay degan tahay beesha dhexe anu waxaan u dirayaa baaq qolooyinka qurba joogta ee goboladan u dhashay anu hal mid baan oran lahaa waxa weeyaan ummaddu iyada wax istarta marka ummaddu dhexdeeda wax qabsato iyadu dhexdeeda wax samaysato ayaa waxa weeyaan ma garanaysaa dadka kale xataa wax ku taraan intaynaan cid kale u baaqan inaan cid kale hungurin gobolka inaga u dhalanay idinka maanta dadkii qurbaha joogaya inaad hoos u eegtaan airportkiinaas oo maanta waxa weeyaan ay dameeruhu dhex joogaan arkaysaan si kastaba ahaatee tan iyo markii uu xilka dalka la wareegay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxyaabaha loo tiriyo waxa kamid ah dayacnaanta tirada badan ee ka muuqata garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal Aadan Isaaq International Airport walow garoonada dhigiisu ay yihiin kuwa 24 saacba ka baaxa degaan diyaaradaha kala duwan ee ku soo xidha garoonada dalka waa Jaamac Xuseen Jaamac Dude Somaliland Space Channel magaalada Boorama